بسم الله الرحمن الرحيم waa wada sheekaysi lamaad ee xisadii ka taagneed xaruntii hore ee dabdamiska ama Sebiano ayaan ku xijinaa wada sheekaysiga labaad midda koowaad wuxuu ahaa waa heshiiskii u dhaxmaray ama u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Turkiga ayuu ahaa kana wuxuu ku saabsan yahay xisadii ka taagneed xaruntii hore ee dabdamiska ee loo yaqaano Sebiano insha Allah wuxuu oranayaa nowadays maalmahan there was waxa jiray tension waa xisad dagaal there was waxa jiray tension waa xisad dagaal between u dhaxeeya the Somali police forces ciidamada xoogga ee Soomaaliya the Somali police forces ciidamada xoogga ee Soomaaliya and the residents ee deegaanaleyda the residents ee deegaanaleyda waa deegaanaleyda kuwaasoo reside degan in Sebiano so what caused maxaa sababay this tension waa xisadani dagaal this tension waa xisadani dagaaleed b wuxuu oranayaa this step tilaabadani came waxa imaaday after kadib the police spokesman afayeenka booliiska announced oo ku dhawaaqay that the residents inay deegaanaleyda who live in kuwaasoo ku nool the government land dhulka dowladda nawnas loo yaqaano dabdamiska or ama Sebiano to move inay ka guuraan from that land dhulkaasi inay ka guuraan wuxuu oranayaa so before ka hor they move intaysan ka guurin the government dowladda give ay siisay a period muddo to those people dadkaasi to move from inay ka guuraan that land dhulkaasi yes the government dowladda gave waxay siisay a period muddo to the residents deegaanaleyda to inay markaasi vacate inay faraaqayaan and move ay markaa ka guuraan from that land dhulkaasi inay markaa ka guuraan wuxuu oranayaa so what is maxay tahay the reason sababta that those residents deegaanaleydaasi are being displaced loo barakicinayo from that land dhulkaas loogu barakicinayo the government dowladda said ayaa waxay sheegtay that they need inay u baahan yihiin that land dhulkaasi since maadaama it is uu yahay government land dhul dowladeed and the government dowladdu wants waxay doonaysaa to revive inay dib usoo nooleyso and rebuild ayna dib u dhisto the former fire station xaruntii hore ee dabdamiska the former hore weeyaan fire station waa xarunta dabdamiska the former hore fire station xaruntii hore ee dabdamiska to si markaasi survive loo badbaadiyo the properties hantiyada and the lives iyo nafsadaha of the people ee dadka weeyaan marka wuxuu oranayaa so what is maxay tahay the reaction falcelin from kaga imaanayo residents deegaanaleyda who live in kuwaasoo ku nool that land dhulkaasi they were chanting waxay markaa ku dhawaaqayeen we have nowhere ma haysana meel to move aan kaga guurno from this land dhulkani we are anaga waxaynu nahay refugees qaxootiyaal our children caruurteeni are in waxay markaa ku sugan yihiin the front line waa afafka hore ee dagaalka ama waa furunta hore ee dagaalka our children caruurteeni are in waxay ku sugan yihiin the front line waa afafka hore ee dagaalka against ay markaa kugula jiraan AS
so we are iminka sending waxaan dirinaa sending we are anagu sending waxaan u dirinaa a message fariin a message fariin a message fariin to the heads madaxda to the heads madaxda to stop inay joojiyaan this displacement barakacani this displacement barakacani oo naas ay markaa nagu hayaan oo naas ay markaa anaga nagu hayaan weeyaan wuxuu oranayaa did the government mi dawladdu issue ay ka soo saartay any solution waxaal ah any solution waxaal ah from markaasi kaga imaanayo the complaint cawashada from the complaint cawashada waa complaint cawashada from the complaint cawashada of those people dadkaasi yes ha the head waa madaxa of regional administration maamul goboleedka the head waa madaxa of a regional administration maamul goboleedka of galmudug galmudug qorqor mid ayaa wuxuu la kulmay the president madaxweynaha of the federaalka to delay in marka dib loo dhigo ama la sii muddo to delay in marka dib loo dhigo that matter arintaasi unsatisfied lana qanciyo those people dadkaasi to avoid si marka looga fogaado violence rabsho ama khalalaaso which kaasoo can result from ka dhalan kareedo risk khatar weeyaan risk khatar or ama waa bloodshed ama dhiigdaad bloodshed waa dhiigdaadasho weeyaan between dhaxmari karayo the police-ka and the residents ee deegaanaleyda in that land ee dhulkaasi wuxuu oranayaa how is the situation xaaladda now iminka the situation xaaladdu scam way degan tahay I heard waxaan ku maqlay in speculation hadal xan la isdhex qaadayo in speculation waa hadal la isdhex qaadayo xana speculation waa hadal xan la isdhex qaadayo that in markaasi the government dawladdu promised to give inay markaas siinayso 5,000 each family qoyskiiba living ku nool in that location goobtaasi and employ ay markaa u shaqaalaysiin doonaan employ one person hal shakhsi for each family qoyskiiba when goorta the fire station xarunta dab-damiska spelt ee la dhiso weeyaan and the job shaqada starts ay bilaabato is all my lesson for today. This is the second lesson, inshallah. You get more and more as I hope, inshallah. Thank you very much. If you need me, you can contact me. The phone, the numbers written on the screen. Thank you very much for watching my video. Like, comments, share. For you, thank you very much. Bye for now.